magaca muqdisho yaa keenay magaca muqdisho waxaa keeneen iiraaminta maqcadul qaxwa ayuu bixiyay maqcadul qaxwa meeshii lagu qaxweynayo amba maqaayadii qaxwada xamar afar magacoo lahaa macnaa ximir waxaa qaadatay xamar ardal baranbara berberaa qaadatay gurigan wuxuu ku fadhiyaa taariikhdii muqdisho oo dhan uu ku dhex fadhiyaa yaa qaali waaye waa la qalajinaa miya waa la qalajinaa waxa waaye doolaru adduunka ka jooga halkani waa meeshii ay ka soo bilaabatay muqdishada quruxda badan ee maanta halkan waa meeshii ugu horreysay ee muqdisho la dhaho ka hor inta aan muqdisho loogu magac darin caasimadda Soomaaliya tabinteena maanta waxay daaran tahay muqdishada maanta bilowgeedii halkani waa xaafadda Aaweeska degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir halkan waa meeshii uu ka soo unkumay magaca muqdisho ee caasimadda Soomaaliya taariikhda magacaasi iyo sida uu ku bilowday ayaan ka sheekeyn doonaa waxa ila jooga waayo joog hore abwaan cabdi maxamed caseer dabride abwaan soo dhawow waxaan taaganahay meel taariikhi ah bal inta ka og tahay meeshan sida magaca muqdisho uu ku baxay halkan aan taaganahay waxa waaye Aaweeska waaye gurigan wuxuu ku fadhiyaa taariikhdii muqdisho oo dhan uu ku dhex fadhiyaa marka gurigan saaxiibkayga Maka Xaji Banaadir yani munaaradii maartay munaaradda meeshaan ku aali jirtay munaaradii gurigiisa laga dhisay waxa waaye munaaradii oo maraakiibta ama doomanka soo leexi jirtay oo halkaan ku soo leexi jirtay halkaan ayay ku soo leexi jirtay meeshaan ayaaba waxay aheeday kulan ay iskugu imaadaan ganacsatada ka imaanayso East Africa amba Africa ka imaanayso amba South Africa ka imaanayso amba Tanzania ka imaanayso amba Zanzibar ka imaanayso badeecada ay wadaan halkaan markay yimaadeen halkaan ay ku xiranayeen halkaan ay fadhiisanayeen kuwa ka imaanaya khaliijka iyo muxuu ahay carabtaasna ka imaanaya ayakana badeec ay wadaan halkaan waa la iskugu imaanaya waxay aheeday meesha la isku wareysto waatahay magaca muqdisho sidoo ku baxay wuxuu ku baxay dadkaas meesha iskugu imaadeen يعني كون كود أيو أها مقعد القهوة أيو بحين مقعد القهوة ماشي اللي قهوينا أما مقايد قهوة ذا ماشي أنا أوصل نداو ذيال وحافظة أويسكا دقمة حمرينية يقول لك بنادر أبوان هاي وين وحنكون حجرنا أويسكا كل حجرنا آتي هذا اللي قرحي حب قرح بدنا يسارن بسم الله دلحيس دلحيس أبي إيكر دير إيكر أيال جوجنا waa 85 sano jir wax badan muqdisho soo joogay taariikh badanna ka haya aab iikar dheere soo dhawow haatan waxa ku sugannahay Aaweeska meeshii muqdisho ay ka soo bilaabatay asaaskeedii masjidka Aaweesul Qarni masjidka Aaweesul Qarni aan joognaa xamar afar magacoo lahaa حمر أرض البرنبرة أرض البرنبرة أرض المقدشة أرض المقدي أرض المقدي نهض مك أفرتس مقعياهاس ومقالة مقدشيو حمر أوليه معناها حمر وحاقة حمر صح أرض البرنبرة بربراء قادتي جميل يا مقدشو مقام الشهوة معناه وإيران مركا مقال داس وأساس كإسها حمر أو أويسكا أو كيانو مسجد كأباس القرن أباس القرن أو ما تفرنوا تضبط بقول كنتم سنة أو دسية وعلينا مقدشو راس المدينة مضحي مدينة وايد أو حجاز مقدشو راس المدينة لله
لكن كل يوم الفتنة markii halkan muqdisho loo bixinayay meeqasna ka soo wareegtay qiyaas ahaan والله خلاص عن markii la soo wareegay oo leeyahay maana waqtigii hore waayo Nabi Suleymaan magaalada Cadan oo joogay waqtigaas waayo adiga 800 sano waa jirta muqdishadii xilligaas iyo muqdishadan isma laha wax badan ku dhex jira macnaha waxaa ku dhex jira waagaas oo la dhahay muqdisho iyo hadda isku mid maahan dadkii ay isbedelay magaca muqdisho yaa keenay magaca muqdisho waxaa keeneen iiraaminta taariikhda muqdisho intaan laguma soo koobi karo oo waa ay ka fara badan tahay goobo kale oo taariikhiga ayaa muqdisho ku yaala balse warbixino kale ayaan daawadeel ku eegi doonaa Abuukar Maxamed Kanaan Rays TV halkii muqdisho ay ka soo unkamantay